halkaad ugu sheeganaynin waxay tahay qofka marka aad baratid laga yaabo isbuuc bil 20 beri marka aad taqaanid hadii aad dhadwan ku jeclaaday waan ka helay waxa laga yaabo qofkaas in la qabo waxa laga yaabo inay saaxiib leedahay waxa laga yaabo inay mardo guursan rabto subscribe meel loo sheeg subscribe arabnaniyo ina ساعة حافظها كعص بهاي عداس ما قنا عداس سبسكرايب ولي waxa macqol meelahaas xafaas laga yar ma ahane ana wali subscribe مش يكرنا ملاس كيشيني عد كما ودين انا عد كما ودين maxay marka subscribe عد كما ودين subscribe qadar baadiba way u qadartay subscribe meel uu sheega dhahay mi fahmay ciyalka xaafada ana olaale subscribe xaafada ku cusubtaada ku jirtay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الميل والباجوكتاني يقول بس كستم ضامن سامبا وصول هذا channelka Jaama nimbuzz hadoo Allah subhanahu wa ta'ala karal noqdo waxaan idin wadaa muqal muqalkaas waxaan rabaa in asxaab badan oo igu xiran oo inay wax ka faa'iido doonaan hadoo Allah subhanahu wa ta'ala karal noqdo muqalkan caawidin wada waxa weeyaan wiilasha iyo gabdhaha qaab ceenkee isku baran karaa sidoo kale wiil hadii uu gabar ka helo qaab ceenkee ayuu la saaxiibi karaa ama qaab ceenkee ayuu keensan karaa sidoo kale gabdhaha ay kan hadii ay wiil ay ka helaan sidee ayay macnaha u baran karayaan ama sidee ayayna ugu wanaagsan qof kasta u soo garan sidoo kale muqalkaas inaan gudgalin muqal baa jiro asxaabtii soo direen ay u dhan Jaama nimbuzz muqalkan waa codkaagi adimiya dibkan adimu ugu dhacay waxa soo weydiiyeen bal intaan ka hadlin inaan aniga ahay iyo dibkaas inuu ugu dhacay ama macnaha arintaas inay aniga qabsatay horta muqalka la soo daawada kadib markaad daawataan kadib aan ka hadli doonaa waxaan ahay dhibana jacayl weliba loo geystay xadgudub jacayl aan dhammaad lahayn hadda waan ka bogsaday waana maalin kale oo cusub waxba dib ha u soo laaban waayo shalay maanta ma noqonayso waana maalin kale oo cusub waan ogaa inaan isjeclayn balse calafka ayaa sidaa yidhi shalay waan ilmeynayay markaad iga tagaysay haddii adiga shalay aad faraxsaneed ogow maanta waan faraxsanahay waana kaa maarmay balse maanta waa maalintaada ku soo dhawow xanuunka jacaylka uu leeyahay dabcan muqaalka soo daawateen oo maleynaya ani horta mar waxa jirtay ama mar baytay in eray jacayl qoro sidoo kale eray ma aragtay daadis aynan qoro in macnaha qof kale ka turjumo laakiin dad badan ay soo direen ugu dhaheen codkaagi waaye youtobekaaga kuma jiro maxaa dhacay aniga ayaa sameeyay sababta u sameeyay waxay tahay mar walba aniga dib iguma dhaco ma garatay laakiin waxa jira dad dib ku dhacay aan jeclahay in macnaha tusaale ka qaataan erayda jacaylkana badana waan alifaa waxa ii keenaysa alifana ma aragtay waan iska jeclay inaan alifo marka dibkan ani imaysan qabsanin laakiin waxaan jeclaystay dadka kale in ay macnaha ay faa'iido ay ka qaataan sidoo kale dad badan ayaa sameeyay kaliya ma ahan soo marka taas ayaa keentay in aan aniga eraydan sameeyo dabcan aniga waaye dibkan aniga ma dhicin waxaan ugu gon lahay marka dadka in ay soo dirdiraan ama waxyaabo ay dadka jecel yihiin inay noqdaan aan ugu gon lahay ma wax aniga u dhacay ma ahayn dadka badan waxay soo weydiiyeen adima qoray ana qoray ana alifay caadi eraydaas anigoo caadi iska ahay maxaa la yiraahdaa iska baashaalayo dhalin saxbiisa iska dhex jiro aan iska qoray waa wax iska caadi ugu talgalay dadka kuwaasi kuwa kala badan aan sameeyay marka halkaas ay ugu gudbeynaa asxaabta erayada jacaylka marmar baan qoraa laakiin ma aha mar haddaan jacayl oo in aan leeyahay dadii camal ka hadlayo mar in macnaha qof jecel ay ka hadlayo mar macnaha qof san ma aha iga ma aha laakiin waan jeclay inaan marmar sameeyo markaas marka halkaas kaga gudubno muqaalka kale aan caawa dad badan ay kan soo weydiiyeen in aan macnaha muqaalka sameeyo ayaan gudgal doonaa horta waxa jirta Soomaali markaynu nahay gabar inaynu barnaa jecelnahay sidoo kale gabarna waxa jecesha wiilkiin la barto mar walba waxa ku fikirtaa marka tahay qof degan gabdhaha aad bay ku jeclaanayaan marka tahay gabar degan wiilashan aad bay ku jeclaanayaan marka gabar aad baratid mise wiil aad baratid waxa laga doonayaa durba dhibaatadaadi ama baahida ku haysato in aadan u sheeganin hadii qofkaas aad jeceshahay ama hadii aad qofkaas aad ka heshayba iska illow inaad jacaylkaaga u sheegato sababta jacaylkaaga ugu sheeganaynin waxay tahay qofka marka aad baratid laga yaabo isbuuc bil 20 beri marka aad taqaanid hadii aad dhadwan ku jeclaaday waan ka helay waxa laga yaabo qofkaas in la qabo waxa laga yaabo inay saaxiib leedahay waxa laga yaabo inay mardo guursan rabto laakiin marka saaxiib la yeelatid oo dad isbarteen camal aan naqatid oo laba qof isku fiican aan naqatiin
isku sir qarsataan maaragtay meesha wax ka dhalanaya kalsooni iyo qofka kale inuu ogaado markaas marka adiga asxaab dhow ama dad isku fiican noqotaan markaas waad u sheegan karaysaa waad dhihi karaysaa qofyay waan ka helay ama qofyay waan ka helay markaas qofka haddii uusan saaxiib lahayn durbo waad dareemi karaysaa oo u sheeganaysaa haddii ay macnaha sida u daneynaysa camal ku daneynayo dabcan ku soo dhaweynaya haddii aysan jacayl aysan rabin asxaab oo dad isku fiican ay jeceshahay gabadha ama wiilku jecel yahayna dabcan uu ka diidaya laakiin marka koowaad isku day gabadha ama wiil ina asxaab la naqatid si macnaha xogtiisa buuxo ah u heshay mid waa taas midda labaadna dad badan baa waxaa dhahaan daahan hortiis dafanaya jiro mar walba waxa ogaataa wixii adig ku qoran inaan qof kale heleenin ma garatay soo marka waxa laga yaabaa qof waqti inta baratay durba u sheegatay ku soo dhameeyay waqti badan aad isla socoteen aad kala hartaan macnaha markaas adig ma ahayn daahana iyo dafana laakiin mar walba qof wax Allah subhanahu wa ta'ala ugu talgalay hadii adiga ma aragtay aan aaminsan tahay wax ka qaadanayso ama cid ka qaadanayna waa mid taas midda labaadna gabadha marka baratid wax been la yiraahdo u sheegin beent waxa laga yaabaa inay ka hor istaagto wanaagaagi ma garatay gabadha runta u sheeg isbar inaa macnaha qof firfircoon tahay isbar in macnaha qof dabeecad fiican tahay waqti si ma garatay wax walba waqti ay gelisid wax fiican ayaa ka soo baxa marka taas way midda saddexaadna waxa waaye gabdhuhu gabar kastoo dunida ku nool oo Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed ay kana waxay mar walba jecel yihiin wiil aanan gabdhaha ku dhacdhicin sababtoo ay taas ugu goleedaan waxay tahay waxay isdheesa wiilkan hadda adiga ku shukaansanayo haddii sida adiga kugu soo dhacdhacay ayuu gabar kale ugu dhacdhacaya marka qof degan aad tahay wiil kasta ma aragtay uu ku soo hanqaltaagaya laakiin marka meel kasta ku dhacdhicaysid wiilasha inta badan kuma jeclaanayaan ama kaama helayaan markii laga reebo ma aragtay kuba inay kugu ciyaaraan ama xumaan ku geystaan ay doonayaan marka dad badan baa isu weydiiyeen jaamaco dad waxaa jiro shukaansi si wacan u yaqaano iyo dad waxaa jiro aan shukaansi aqoonba laakiin gabdhaha jecel yihiin sida isku fahmi karaan marka labadaas qof waxay isku fahmi karaan horta mar walba ma aragtay adiga sida aad rabtid inaad mar walba helaysid niyadda gashan marka niyadda aad gashatid qofkan laga yaab inaadan baranaynin laga yaab ma aragtay inaadan helaynin hadda niyadda gashatid ma aragtay 90% waad helaysaa qofkaas sababtoo ah maanta waxaas waa u baahanahay hadda dad ma aragtay way adagtay sida ku heshid soo marka gabadha marka baratid isku daji dabeecadeeda baro dhaxgal ma aragtay xiriiri ma garatay mar walba marka xiriisid ayadana ku soo xiriirinaysaa okay qofka marka baratid xiriirinaysid adig uu ku soo xiriirinaya dad badan ay weydiiyeen qofkaas ka waran qofkaas la adiga ha u fikirin dhinaca xumaanta ma garatay waxa laga yaabaa gabadh wax baranayso waxa laga yaabaa family problem no haysto waxa laga yaabaa inay si kala u mashquulsan tahay ama inay macnaha nafsiyan dhibaataysato laakiin haddii mar walba adig aad raadisid oo asiga aan ku soo raadinayn ama ayada ku soo raadinayn macnaheedu ma ahan inaysan ku rabin midda kale waa laga yaabaa gabadh inay saaxiib leedahay aysan adiga waqti u helin laakiin adiga mar walba ka raac inta wanaagsan taas weyn midda kale wax ku soo haray marka qof aad baratid waa muhiim boontiga jeclaysta inaan barnaamijkan idin soo gudbiyo waxa waaye gabar marka adiga aad baratid turba inaa ka heshay ha u sheegan sababtoo waxay ka hor istaagaysaa in adiga aad qof fudud tahay waxay ka hor istaagaysaa in adiga aad tahay qof maaragtay gabar kastoo saas u arko oo dhahay waa ka helay mar walba naqo qof degan u baahan waqti inuu qofkaas la qaato ma garateen marka waxay la tahay in waxyaabo badan aan caawa ka hadlay mawduucana dabcan lagama baranin laakiin dad badan baa i wareeriyeen qofkaas wuxuu dhahay jaamaco arrimahan please muqal loogu soo sameeyay marka sababtaas ayaa keentay in aan muqal kaga soo sameeyo haddii adiga aad gabar aad baratid ama gabadha wiil ay barato mar walba waxaa loo baahan yahay si degan maaragtay oo akhlaaqda iyo wanaagga ay ku dheehan tahay gabadhaas ula dhaqan ama maxaa la yiraahdaa ula xiriir hadda waayaan damba waxa baraha bulshada qabsadeen gabar wiil xumeynayso wiil gabar xumeynayo mar walba maaragtay inta qof aad xumeysid xumaantaas waa mid adiga meel ku taalo ma aha qofka aad xumeysay in macnaha nolosha ka dhacayo ma garatay qof hadda adiga aad xumeysid ma garatay qofkaas wuxuu noqonaysaa 10 oo beri ka saalan oo ka bixi karo adigana maanta qofka aad xumeysay ayaa meel ku taalo beri adigana qof kale ayaa ku xumeynayo ma garatay marka mawduucna ma rabo inaan ku sii dheeraado barnaamijka reaction maaha fiidiyoyada kaleetana maaha waxaan jeclaysaa caawa asxaabta arrimaha jacaylka aad u taageero su'aalo badan jacayl iyo waxaas ay soo weydiiyeen inta aniga xog aan ka leeyahay ama inta aniga ay ka aaminsanahay weedana wadaagay soo marka aad u maasantii si wacan wanaagsan muuqaal ku daawateen dabcan haddii aad wax ka faa'iiday
ama haddii aad jeclaysatay maaragtay in asxaabta la wadaagtid la wadaag sidoo kale haddii ay tahay markii kugu horeeya soo booqatid channelka Jaama nimbuzz waxbaa naga xaasin subscribe noo saar sidoo kale ra'yigaaga qaybta hoos ayaad noogu soo dhiibi karaysaa haddii aad jeceshay in aniga ila soo xidhiidhid ama su'aal gaar ay weydiisid Instagram-keena soo saaraya la soo xiriir waxaan ku leeyahay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaan muuqaalka xiga dib kaga kulmi doono Jaama nimbuzz iyo weliba saaxiibkii ayadoo leh sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum